kuwa iyagu dowladaha bulshada caalamkuna ay lahayd kuma aamini karno markii lasoo koobo dhibaatadaasi weli ma taala aad iyo aad ay weli u taallaa annagu waad garanaysaa 22 sano dowlad la-aantana soo ahay magacyada ugu xunxun oo dhamma ayaa magaceena Soomaaliya la raaciyay oo Soomaaliya waa dalka adduunka ugu musuqmaasuq badan Soomaaliya waa dalka muxuu xerada qaxootiga ugu weyn adduunyada dal kale Soomaaliya waa dalka biyaha badaha laga mari laayay burcad badeedooda Soomaaliya waa meesha argagixisada ka timaado wax la mid ah fara badan midka marka midaan hadda aad ka hadlay ka qosayso Soomaaliya waa dalka adduunyada ugu musuqmaasuq badan waxay keentay lacag gacanta ladin saar maayo arrintaasi haddaatan waa ku tiriyay saddexda muhiimadood oo dawladda ugu waaweyn waxa kamid ah dib u habeynta ama dib u qaabeynta maamulka maaliyadda dawladda ayaduna de hal maalin ma dhacayso laakiin waxa jirta dawladda Soomaaliya ee wada xaajood dheer ka soo gashay haddana meel fiican oo gabagaba marayo qaab ama maxaan ku radaa hay'ad annaga iyo caalamkuba aan isla aaminsanahay annaan wada maamulayno oo lacagaha lagu soo shuba muddo ku meel gaar ah muddadaas ku meel gaarka ay jirtana si parallel loo dhiso awoodii iyo sumcaddii hay-adaheena maamulka maaliyadda ku xisaabsan qaabilsan markaas kadibna hay-adaheena loo wareejiyo muxuu ahaa hawsha maamulidda lacagta marka muddo yar fitro yar ay jiri doonta oo aan kala gudbi doono arrintaas doonariska ama deeq-bixiyaashooda ugu waaweyn aan kala hadalnay maanta ugu dambeysay sitamaanka la soo dhaafay magaalada Muqdisho weyn oo bangiga adduunka aan la galnay ka dhacay maantana muxuu ahay waxaan la shirnay madaxweynaha bangiga adduunka iyo tiimkiisana maantana wada shirnay meelan soo gaarsiina hadda in si ku meel gaar ah hay-adaas loo isticmaalo hay-adaheennii maamulka maaliyadda ee wasaaradda maaliyadda bangiga dhexe xisaabiyaha guud hanti dhowraha guudna soo dhiso muddo ka bacdina hay-addaani ay mas-uuliyadda ku wareejiso hay-adaheena marka intii hay-adaheena laga soo dhisayo inaan fafadhino ma doonayna inaan yeelno hawshii inay socoto hay-adihiina dhiso marka sidaasaan ku shaqeeyo haynaa waxaan sugaynaana muddo dhow in hay-adaheena inta la wada aqbalo ay lagu wareejiyo muxuu ahay maamulka maaliyadda waxaad afka ku dhifatay in burcad badeeda oo magacay sumcadda dawladda wax weyn u dhimay dhibaatooyinkooda kastoo baryahan aad moodo in laga soo reynayo haddana ay jiraan maxay tahay siyaasadda cusub ee dawladdaada ee burcad badeedka ku aadan weliba markaad eegto iyada oo dowlad goboleedada duwan ay dalka ka jiraan oo mid walbaba si madax bannaan ay ula macaamiltamayaan dadka shisheeye annaga dawladdeena burcad badeeda in la joojiyo hawshaas burcad badeednimada waa siyaasaddeenu waa hawsha burcad badeednimada in la joojiyo sida ugu dhaqsiyo badanna loo joojiyo duruufaha kale dhibaatooyin kale badeena ka jirana sidoo kale laakiin hadda maadaama burcad badeed aan ka hadlaynahay dowladda Soomaaliya marka dadaal badan ay ka gashay muddadii ay jirtay diyaarado iyo maraakiib gantaal xambaarsan burcad badeed u dirna anaga ma qabno xal weyn inay ka keenaysa ma qabno laakiin bulshada Soomaaliyeed ayaan dhaqaajinay dadka odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada iyo bulshada rayidka ayaan dhaqaajinay in ay la hadlaan wiilashan ilaan doorka kama imaan waa wiilasheeya taasne jawaabteedii oo positive oo fiican waan helnay waad la socotaa maalin dhaweeyta waxaa la sii daayay 3 nin oo 3 sano la haystay haddana muxuu ahay 6 kale ayaa haddana la sii daayay ilaa 120 wiil oo burcadeed hawleeda ku mashquulsaneed ayaa inay soo dhiibaan dawladda u yimaadaan diyaar u ah dawladuna ay hadda u qaban qaabiyo hayso sidii wiilashaasi tababar iyo xirfado cusub loogu abuuri lahaa oo muwaadiniin dalkooda Yuusufura u noqon lahaayeen marka dawladdu dal dhinacaas ay ka gashay ma qabno burcad badeeda in ay joojin karto ama ay baabi'in karto awoodda badda joogto oo kaliya maanta haday hoos u dhigmaan biri way ku noqon karaan hawshii badana ciidamada abidkood ma joogayaan laakiin culture-ka burcad badeednimada iyo duruufihii keenay in la address gareeyo waaye dawladda Soomaaliya taasi dadaalkeeda ku jirta waa gartay dawlad goboleedada aan xusnay markii xataa laga tago arrimaha ku saabsan burcad badeeda waxa aanu intaa maqalnaa ama waraaqa doolaya oo dowlad goboleedyadu ay soo qorayaan oo ay kula xaajoonayaan dowladda shisheeye federaalkina waa kamid yihiin sharciga dastuurka idin dhigan dowladda federaalka ah ma u ogolaanaya in dowlad goboleedyada wadanka ka jira ay wadamada kale ay toos ula xiriiraan maya arrimaha dibadda iyo cilaaqaadka caalamiga dowladda federaalka ka mas'uul ah wakiilna waa ah Soomaaliya oo dhan iyo caalamka inay la macaamilaan
laakiin dee duruufaha gaarka ee dalkeenu ku sugan yahay waad garanaysaa waxyaaba qaarkood badan annagaa raalli ka ah arrimaha bini aadamnimada arrimaha horumarka waxaas in dhulka dadka jooga maamulka dhulalka jooga lagala hadlo wax dhiba kuma qabno marar badanna waan ogolaanaa howlaha badankoodan dib ay noogu soo noqdaan waana la weydiiyaa caqabada dowladda dhexe hadda caqabad inaan noqono ma doonayno arrimaha bini aadamnimada arrimaha horumarka annagaa u ogolaanay hay-adaha dowladaha caalamka inay kala macaamilaan dadka dhulka jooga si dadka dhulkaas joogahay ay u helaan dowladuna marar badan xataa waan indoorsi garaynaa waan ogolaanaa qaarkood qoraalan weliba ku bixinaa in ama dhaqaalahaas la geliyo ama hawshaas laga qabto deegaankaas inaan halli ka nahay waa gartay saacadda madaxweyne maxaad nooga beerin kartaa shirka la sheegayo inuu London ka dhici doono bisha May ee soo socda oo la yiri dowladda UK iyo dowladda Soomaaliya ayaa wadajir u qaban qaabinaya waa saas shirka waa dowladda Ingiriiska iyo dowladda Soomaaliya ayaa qaban qaabinayo team dowladda Ingiriis ka tirsan iyo team annaga dowladda Soomaaliya ka tirsan ayaa qaban qaabadiisa haddaba gacanta ku haya ajendaha iyo invitationska iyo wax walba isla sadgaraynayna waana shir Soomaaliya ah waxaanan prime ministerka Ingiriiska iyo aniga oo ah madaxweynaha Soomaaliya ayaana wada chair garaynayna co-chair ka ah madax badan oo caalamkaana way ka soo qayb gali doontaa waxaana looga hadli doonaa danaha mustaqbalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliya sidii dib loogu soo dhisi lahaa dib loogu soo kabi lahaa marka shirkaasi qaban qaabadiisa way socotaa kii kan ka horeeyay lagu qabtay London kala hore February waxaa qayb weyn ka ahaa arrimaha Somaliland kan ma filaysan inuu ku jiro Somaliland annaga waxaan qabnaa Soomaaliya inay ka mid tahay laakiin dee duruufo gaar ah jira oo ayadana meesha haya duruufahaas gaarkaana wada hadal horay u socdayaa jira annaguna wada hadalkii baan sii xoojinaynaa waxaynaynaa laakiin shirka lana lagu qabaya waa shir Soomaaliya saacadda madaxweyne markaad soo koobto haddii aad sawir siiso dadweynaha geysanaya maalintaadu si ay ku bilaabato caadiyan markaad xafiiska joogto Muqdisho saacadda markay aroorta ku bilaabato ilaa habeenkii sida ay wax u dhacaan waxyaabaha aad mudnaanta siiso iyo waxa aad intii 4 bilood aad soo joogtay aad waqtiga badan gelisay maxaad nooga sheegi kartaa maalmahaygu dabcan waa usbuuca waa kala qaybsan yihiin mana waa maalmo shaqo dhamaanba waa maalmo shaqo laakiin haddana shaqooyinka laftooda usii kala qaybsan yihiin oo maalin dadweynaha aan qaabilo oo aan dhageysto aaraadaada iyo ra'yigooda iyo cabashadooda jirta maalin aan baarlamaanka la kulmo oo aan baarlamaanka dhageysto aaraadooda iyo afkaartooda jirta 4 maalmood oo kalena shaqooyinka routiinka xafiisku leeyahay ayaan qabtaa midda yawmiya ah subaxdii 9 xafiiska imaada oo shaqo bilaaba waxaanan ka baxa markaan ugu hormaron ugu dhaqsado oo caawa waad dhaqsataan ilaado 12 saqda dhaxan shaqada ka baxa maalma qaarkood waxaa dhacdo xafiiska anoo jooga salaada subax inaan ku dukado oo aanan ka bixin marka hawsheenu hawl saacada ma aha waa laakiin mar dhow in ay wadada inta qabsato ay saacado badan noo soo haraan rajeedina hadii la yiraahdo ugu dambeyntii saacada madaxweyne maxaad isleedahay fursadan uga faa'iideyso oo shacabweynaha Soomaaliya ee na dhageysanaya meel walba joogaan ama daawanaya videogan aad u sheegi lahayd Cabdiraxmaan aad iyo aad u mahadsan tahay dadweynaha Soomaaliyeed horta waa u hambalyeynaya waana bogaadinayaa taageerada iyo garab istaaga ay dawladda anigu madaxdan ka ay garab istaageen waa uga mahad celinayaa taageeradaas ay garab istaageen oo maadiga iyo macnawiga ahna waxa hadda noo qabsoomay waa waxa ay noogu qabsoomeen waxaan rabaa sidii aan horeyba u ballan qaaday inaan mar kale ugu celiyo anagu 2 arrimood ayaa aniga iyo dawladda aan madaxda ka hayba ka go'an labadaas arrimood waxay tahay Soomaaliya oo leh dawlad shaqeynaysa oo nabadna ah degan iyo Soomaaliya oo mid ah aadaan u qabnaa inaan ka mir dhalin doono marka aan helno taageerada dadweynaha oo aan hubno inaan heli doono labadaas goolna waan gaarina wax kasta oo qiimi ah oo in la bixiyo mudanna waan bixinaynaa si aan u gaarno Soomaaliya oo mid ah oo dawlad shaqeynaysa leh ayaduna nabad ah dhexdeeda dariskeeda iyo caalamka intiisa kalena nabad la ah inta aan jirinayna waa intaas inaan gaarnaan qabnaa
marka dadka Soomaaliyeed taageeradooda aan helno oo aan ilaa haddana 100% aan helnay kana mahad celinayno waxaan leenahay Soomaaliyeed intaas waxaan ku gaari karnaa oo kaliya annaga iyo istaageerideena iyo is-aaminadeena kuwa been sheegayaasha ah warkii la sheegaba dhinac u qalluucinaya diinta islaamkana way sheegtay annaguna waan arkaynaa yaan waxba la idin sheegin yaan been la idin sheegin dowladdiinu dowlad ku meel gaara ma aha caalamkana waxay ka mudnayd way ka heshay waqti un baa naga xiga inaan labadaas gool xaqiijin waana gaarina haddii ilaahay adinkii waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad mahadsantahay cabdiraxmaan kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo magaaladan Washington ugu waramayay madaxa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA-da Cabdiraxmaan Yabarow.